Ronaldo walaashii oo si kulul uga hadashay in Ronaldo uu ka baaqdo aaskii Jota. Katia Aveiro oo ah gabar ay walaalo yihiin xiddig reer Portugal ee Cristiano Ronaldo ayaa si kulul ugu jawaabtay dhaleecaynta loo jeediyay walaalkeed kadib maqnaanshihiisa aaska ciyaaryahanka Liverpool ee Diogo Jota. Wargeyska Ebola ee dalka Portugal ayaa sheegay in Ronaldo uu si ulakac ah uga baaqday aaska si uusan u dhalin buuq saxaafadeed oo sii kordhin lahaa murugada qoyska Jota iyo walaalkiis xilli ay u baahnaayeen xasilooni iyo xushmad. Katia ayaa ku qortay barteeda Instagram-ka markii aabahey geeriyooday dhibtu waxay ahayd mid ka badan khasaaraha laftiisa. Waxa ugu murugada badnaa waxay ahayd sawir-qaadayaasha iyo dadkii u soo daawashada yimid xabaasha. Meel walba buuq ayaa jiray, xabaalo ayaa la burburiyey, dad ayaa derbiyada ka booday si ay sawiro u qaataan xushmad la'aan darteed. Waxay sii raacisay, xitaa si sharaf leh uma aanan bixi karin. Waxaa halkaas joogay mas'uuliyiin iyo tababaraha xulka qaranka, laakiin ma xasuusto cid ii timaaday. Xanuunka ayaa igu filnaa. Katia ayaa si adag u difaacday walaalkeeda iyadoo leh ciddii eedeynaysa walaalkii ama shaki gelinaysa taageeradiisa lama doodi doono, waan bologareyn doonaa. Waxaan ka daalay eedeyn aan sabab lahayn iyo xagjirnimo indhalaan ah. Bulshadiinnu way bugtaa, xanuun la'aan iyo wacyi la'aan. Waxay hadalkeeda ku soo gabagabaysay. Waxaa wax lagu xumaada ah in warbaahinta iyo baraha bulshada ay xoogga saaraan maqnaanshaha Ronaldo halka ay u muujin lahaayeen xushmad qoyska murugaysan ee labada carruur waayey. Waxaan ka xumahay xaqiiqadaas. Dunidu sidaas ayay noqotay. Aragtiyo aan qiimo lahayn iyo dad aan qalbi lahayn ayaa isugu yimid. Qodobkaas ayaa miiska noo saarnaa caawa barnaamijkeena bandhiga ciyaaraha. Haddii aad ilaa dhammaadka muuqaalka nala soo gaartay ha ilaawin inaad muuqaalka like saarto, sidoo kalena aad sii share garayso. Haddii aad nagu cusubtahay nagu soo biir oo ka mid noqo asxaabtan ugu xiran. Mahadsanid.